amaahda qaabka ay joojin karto walaal waxa weeyaan in dadkan amaahda ka qaadanaya aad si fiican ugu sheegto inaanad amaah waxba ku bixinin kow labana aad ballaariso macaamiishaada oo samaysato macaamiil cusub inta badan amaahda dadka inoola yimaada waa dadka ehelka iyo dadka asxaabta yani waa dadka ugu badan ee kala kulmaan dhalinyarada wax weyn ganacsiga bilowday amaahda ay kala kulmaan laakiin dadkan aydan mostly is aqoonin ehel ama asxaabeydaan haynin dee wadad iyagu 100% yani hadday ku qancaan adeegaaga si fiican kaaga iibsan karaya ka waxaad ballaarinaysaa dhanka yani suuqgeyntiisaad yani wax weyn wanaajinaysaa istiraatiijiyad suuqgeyneeda wanaagsan baad qoraysaa deetana taasaad dabaqaysa marka waad joojinaysaa inaad amaah bixiso completelyna waad arki doontaa yani isbedelka dhaca talabaad waxa weeyaan aad u maarayn karta haddii lacala laga maarmi waayo qofka wax ka amaahanaya waa inuu boqolkiiba 50 lacagta sii bixiyaa that's it 50% of it waa inuu soo bixiyaa laakiin boqolkiiba boqol aanu ku qaadanin dii haddii kale waxay yani istaaggelinaysaa ay istaajinaysaa dhaqdhaqaaqa yani waxa weeyaan cash flow-ga wax weeyaan ganacsigaaga taasoo meesha ka saari karta in ganacsigaagaasi uu noqdo mid sii jiraba iska daa inuu guulaysteen iyo inuu faa'iido samaysa inuu sii jiro yani